alxamdulilah dadaad UK iyo wadamadaad joogto deynta aad qaadanayso anu cultureka iyo dhaqanka iyo xeerarkooda intaan ku ogaa ribaa ku fuulaysa laakiin isagu ma sheegin saa'ilku deynta ciduu ka qaadanaya iyo heshiiska uu gelaya noocee wey haddaad deyn lacaga qaadanayso oo deyntii lacagta ahayd iyo faa'iido lagaa doonayo inaad soo celiso sidaan ku aqoon jiray dee lacagtaa ribo wey haddii deyntaad qaadanaysa iyadii unaad soo celin doontana wadan waxba ku soo darayninna dee deyntaa way bannaanaan oo ribo maaha haddaan wax kaleoo sabab kaleoo xaaraantinimaysa aana imanin saas darteed haddii deynta iyo faa'iido la celinayo ribo weeye ribadaas qaadashadeeduna ma bannaana hadda daruuraadka tubiixulmaxduuraadka ahna inta aan garanaya ka mid maaha ribaduna dembi yar maho qofka muslimka ku fududaan karo aad qaadatide intaad dhammaysan inaad noolaana damaanad ma haysatid haddii abaad dhammaysata inaad ku intifaacina wax damaanada ma haysatid laakiin tani waa dembi la hubo kabaa'irta ka mida oo aad u qasdayso ood gelaysa wey marka cudurdaar bannaynaya oo afraadiya qof walba oo iska gelaya u bannaynaya oo daruura anugu kuma garanayo ma ogi intaas ka shaqaysato waxbarashooyinkana qayb baa la loox jiitaaye loox jiit isaga dhammaysa say rag badan sameeyeen intaad ribo qaadan lahayd bilaahi towfiiq